حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. السلام عليكم. طبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الفردوس منزلا. walaalahayga ku nool adduun weynaha, wax ayaa mar walba ku murugoodaa. murugadayda ayaa rabaa inaan idiin sheego, gaar ahaan culimmada Soomaaliyeed, mid walba oo i dhegaysanaya, meel walba uu iga dhegaysanaya, waxaan ku odhanayaa walaalkay, bal orod TikTok-ga gal, bal orod waxaad gashaa Instagram-ka gal. waxaad arkaysaa gabadhii berigii hore xijaabanayd, waxaad arkaysaa gabadhaad adigu macalinka u ahayd, waxaad arkaysaa gabadhii sharafta lahayd ee aad adigu soo bartay qur'aanka, gabadha malcaamadaada dhigan jirtay, gabadha madrasadaada dhigan jirtay ayaad arkaysaa TikTok-ga aad ku arkaysaa iyadoo qaawan. waxaad arkaysaa gabadhii oo qaawan, walciyaadu billaah. waxay ahayd gabadh muslimad ah oo haddana sheeganaysa muslimnimo, se laakiin marka ay soo gashay Maraykanka amaba markay soo gashay Yurub, waxay bilowday xijaabkii bay tuurtay, rabbigeeday hilmaamtay, aakhiray hilmaamtay. waxaad arkaysaa gabadhiyo ka ciyaaraysa, ka jaasaysa Instagram-ka, ka jaasaysa TikTok-ga. war gabadhaasi waxay ahayd gabadh sharaf leh, gabadhaas waxay gabadh sharafta dalkeeda ilaalinaysa, gabadh sharafta dadkeeda ilaalinaysa, gabadh sharafta culimadeeda ilaalinaysa. se laakiin maanta gabdhahaasi waxay sharaf meel uga dhaceen culimo Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeedba sharaf meel ayay uga dhaceen. Soomaalidu waxay leedahay diin keliya, diintaasoo ah diinul islaam. gabdhaha aad ku arkaysid TikTok-ga, rabbi baan kugu dhaartay, waxay ahaan jireen gabdho xijaaban. gabdho Soomaaliyeed ama gabadh Soomaaliyeed oo dalkeeda ku nool oo bilaa xijaab ku socota weligaaba arki maysid. walaashay, ma waxaad hilmaamtay aakhiro? walaashay, ma waxaad hilmaamtay qabrigii madoobaa? walaashay, ma waxaad hilmaamtay cadaabta jahannama? walciyaadu billaah. markaa culimo Soomaaliyeeday, waxaan idi odhan lahaa, inta aad karaysiin waaniya. rabbi subxaanahu wa tacaala qur'aanku wuxuu ku yidhi, walaalkay han kuu sheego, nebi muxamed ayuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. hadda waa nebi muxamed, innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa. nebi muxamedow, adigu hanuunin maysid, adigu hadeeyin maysid qofka aad jeceshahay, walaakin rabbi ayaa soo hanuuninaya. marka culimo yahay, idinku soo hanuunin maysaan amaba idinku soo hadeyn maysaan. wamaa calayka ila albalaaq. adigu waxaad mudan tahay amaba waxaa ku saaran waa balaaq oo keliyata, oo sheegitaankoo keliyata wey. markaa culimo yahay, gabdhahan inta aad karaysiin u sheega, anigu waxaan ahay nin walaalkiinna ah oo oromo ah. waan arkay gabdhahaas oo ka jaasaya amaba ka ciyaaraya TikTok-ka, waan u dul qaadan kari waayey. taa daraaddeed ayaan idinku sheegay. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.